maanta waxay muddo kadib ay adeegsadeen gantaalka loo yaqaano M9 waxay garabka militariga dhaqdhaqaaqa Xamaas gaar ahaan Kataib al-Qassam ay sheegeen inay gantaaladan ay ku weerareen magaalada Tel Aviv iyo sidoo kale deegaanada ku dhow talaadada maanta ah waxay sheegeen laba gantaal inay ku weerareen Tel Aviv iyagoo ka jawaabaya xasuuqa ay ciidamada Israa'iil ay ka geysanayaan magaalada Gaza sidoo kalena lagu bartilmaameysanayo goobaha ay dadka shacabka ee barakacay ay ku sugan yihiin hogaanka Kataib al-Qassam ayaa telefishinka Al Jazeera u xaqiijiyay in laba gantaal ay ku weerareen deegaano kala duwan oo ciidamada Israa'iil ay ku sugan yihiin waxaana la sheegay gantaaladaasi in laga soo tuuray goob aan sidaasi kaga fogeen fariisimo ciidamada Israa'iil ay ku leeyihiin magaalada Gaza janaalka 13aad oo Israa'iil ka soo baxa waxa uu sheegay in magaalada Tel Aviv laga maqlay dhawaaqa qaraxyada kuwaas oo ugu yaraan loo qaatay inay yihiin labada gantaal ay soo tuureen xoogagga iska cabinta ee Falastiiniinta lagana tuuray magaalada Gaza taas waxay ka dhigan tahay weli inay jirto awoodii gantaalada ee xoogagga iska cabinta ee Falastiiniinta inay isticmaalaan gantaalka M9 ayaa sidoo kale waxay ka dhigan tahay awoodda gantaaladan weli inay xoogaggu ay gacanta ay ku hayaan Israa'iil ayaa dhowr jeer hore waxay u sheegtay inay burburiyeen xarumo gantaalada laga soo tuuro dhinaca Israa'iil marka la eegana waxay sheegeen in koonfurta magaalada Gaza ay u badan tahay in gantaalada laga soo tuuray ayna ku dhaceen xeebaha magaalada Tel Aviv sidoo kalena waxay sheegeen inaanay dhanka xadka ka soo gudbin xoogagga iska cabinta ee Falastiiniyiinta ayaa weerarkoodan waxa uu ku soo beegmayaa iyagoo sheegay inay ka jawaabeen wixii ka dhacay deegaano ku yaala Khan Younis halkaas oo dad shacab lagu bartilmaameysaday raadiyaha ciidamada Israa'iilna waxa uu leeyahay waa markii ugu horeysay oo dhawaaqa gantaaladan laga maqlo inay ku soo wajahayeen magaalada Tel Aviv tan iyo bishii May ee la soo dhaafay macluumaadka waxa intaasi ku darayaan gantaalada inay u badan tahay in laga soo tuuray deegaanka Bani Suhayla oo Khan Younis ka tirsan ugu yaraana waxa laga soo tuuray meel 1 kiiloomitir iyo bar u jirta fariisimaha ay ciidamada Israa'iil gaar ahaan gootada 98aad ay ku leeyihiin dhinaca Khan Younis maalintii sabtida ee la soo dhaafay ciidamada Israa'iil ayaa xasuuq waxay ka geysteen iskuulka Al-Taabiciin waxaana ay ku dileen in ka badan 100 ruux oo rayid ah xoogaguna waxay sheegeen gantaalada maanta inay taa kaga jawaabayeen dhinaca kale Xisbullah ayaa shaaca ka qaaday inay bartilmaameysadeen fariisimaha ciidamada Israa'iil ay ku lahaayeen deegaanada dhinaca xadka waxaana ay sheegeen inay burburiyeen xarun dhanka sirdoonka ah oo ciidamada Israa'iil ay lahaayeen xoogagga iska cabinta ee Xisbullah ayaa talaadada maanta waxay sheegeen inay gantaaladaas ay ku garaaceen waqooyiga Israa'iil halka ay Israa'iiliyiinta ay sheegeen inay soo rideen laba diyaaradood oo drones ah oo dhinaca Lubnaan laga soo tuuray dagaalyahanadan ayaa waxay shaaci ka qaadeen inay bartilmaameysadeen xarun ay isticmaalaan ciidamada Israa'iil gaar ahaan xarun lagu kaydiyo qalabka waxbasaasa oo deegaanka Misgaaf ka tirsan kana mid ah buuraha Abar Galiili loo yaqaano waxa kale oo ay sheegeen xoogagga iska cabinta inay ku burburiyeen gawaari ay isticmaalayeen agagaarka deegaankan xoogagga iska cabinta ee Xisbullah dhankooda waxay sheegeen inuusan jirin macluumaadka ku saabsan in la soo riday laba ka mid ah diyaaradaha droniska oo Xisbullah ay ku weerareen saldhigyada ciidamada Israa'iil dhinaca kale maanta dagaal aad u qaraar ayaa wuxuu ka dhacay dhinaca iyo Khan Younis iyo qaybo kale oo ka mid ah magaalada Gaza Kataib al-Qassam garabka militariga dhaqdhaqaaqa Xamaas ayaa sheegay in galbeedka magaalada Rafah ay howlgal gaar ahaaneed ay ka fuliyeen waxaana qaarkood ka qayb galay howlgalka dagaalyahanada loogu talagalay inay isticmaalaan qoriga al-Ghul oo dhinaca shiishka ah xaafadda Tal al-Sultan ayaa weerarka ugu badan uu ka dhacay Kataib al-Qassam waxa kale oo ay sheegeen inay weerar ay ka fuliyeen dhinaca waqooyi ee Khan Younis gaar ahaan waqooyi bari waxaana ay sheegeen inay bartilmaameysadeen fariisin ay ciidamada Israa'iil halkaas ay ku lahaayeen dagaalka maanta waxa la sheegay inuu ahaa midkii ugu qaraaraa todobaadyadan marka la eego wargeyska Haaretz oo Israa'iil ka soo baxana waxa uu leeyahay ciidamada Israa'iil waxay shacabka Falastiiniyiinta ay u isticmaaleen sida gabaad oo kale waa ciidanka kuwa ay soo xireen wargeyska Haaretz ayaa macluumaadkan baahiyay kadib markii sida ay sheegeen ay sameeyeen baaritaano iyaga oo qaarkood iska hormarinaya gelinayana godadka ku yaala magaalada Gaza sidan oo kale dhowr jeer ayaa dhacday qaramada midoobe xataa waa ay ku cambaaraysay ciidamada Israa'iil waxaana la sheegay inay iska hormarinayaan dadka shacabka ee maxaabiis ahaan ay u haystaan iyaga oo ku sahminaya godadka iyo goobaha ay galayaan iyo dhismayaasha ku yaala magaalada Gaza waa tii bilooyin ka hor aan idinla wadaagay macluumaadka iyo muuqaallo ku saabsanaa sidaani oo kale ciidamada Israa'iil qaabka ay u isticmaalayeen dad shacab ahaa iyadoo qaarkood xitaa dadkii Falastiiniyiinta ahaa markii ay godadka gudaha u galeen af Carabi ay kula hadleen ciidamadii Xamaas una sheegeen in lagu sahminayo lana doonayo in lagu soo qabto isla iyaga dhinaca kalena ciidamada Israa'iil ayaa waxa lagu waramayaa in ay maanta ay duqeeyeen goobo dad shacab ay deganaayeen agagaarka xerada Nusayraad ee bartamaha magaalada Gaza
halkaasi waxaa la sheegay in dad badan oo shacab ah ay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. sidoo kale ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay bartilmaameedsadeen deegaanka Almahta lagu magacaabo. deegaankan waxa uu ku yaalaa dhinaca Qanyoonis, waxaana sida la sheegay ay ku burburiyeen gantaallo goobo badan oo dad shacab ay ku sugnaayeen. xoogagga iska caabinta ee Falastiiniyiintana qoraal ay soo saareen maanta waxay caalamka ka dalbadeen ama guud ahaan bulshada in baaritaan lagu sameeyo xadgudubyada ka dhanka ah maxaabiista ay gacanta ay ku hayaan ciidamada Israa'iil, kuwaasoo inta badan laga qabto deegaanada dhaca dhinaca galbeedka iyo deegaano kale. ciidamada Israa'iilna maanta waxaa la sheegay inay masaajidka Al-Aqsa ay weerar ay ku qaadeen. dowladda Sacuudiga iyo dowladaha kale ee gobolkan arrintaas way cambaareeyeen. waxyaabaha ka soo kordha arrintan barnaamijyada